gudida abaaraha waxaa fayskii hore inaga soo gaadhay gobolada Sool iyo Saraar iyo Xaysimo $29,990 fayskii labaadna intaa in leeg $29,990 oo ah lagu qaybinayay biyo dhaamis. raashinku wuxuu ahaa 3,300 oo qoys. hay'adaha ay wax naga soo gaareen waxay ahaayeen hay'adda Sahamiya Foundation oo leeyahay mulkiilaha Ismaaciil ee leh shirkadda World Remit, hay'adda FCO oo leeyahay ganacsade ka soo jeeda